wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaacisay kiiskii labaad ee geeriyooday xanuunka COVID-19 ee dalka halka saddex xaaladood cusubna ay ku soo biireen tiradii hore tirada guudna haatan ay marayso 12 qof oo qaba xanuunka COVID-19 sidaas waxaa sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye waxa maanta aynu shaacinaynaa oo aynu ku daraynaa nambarkii hore inay ku soo kordhay 3 case oo kale inaga oo markaa tirada guud ee qaranka Somaliland laga helay xanuunka COVID-19 ka dhigi doonta 12 case halka tirada bogsashadu ay tahay 3dii hore halka dhimashaduna uu qof ku biiray oo ay noqonayso 2 case inay u dhinteen xanuunkan muddadii uu ka bilaabmay Somaliland sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadku waxa uu ka warbixiyay xaaladaha xanuunka COVID-19 ee 40 saacadood la soo gudbay waxa uu agaasimaha bulshada la wadaagay fariimaha caafimaad ee ay bixisay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee dadka aynu shaybaadhka u sameynay guud ahaan waa 311 qof iyada oo ay wali wasaaraddu ku hawlan tahay hawlaha screening-ka ah ee ay ka wado meelaha la yiraahdo entry point-yada amba meelaha ay ka soo galaan baabuurta ganacsiga ahi ee xuduudaha waddanka Somaliland iyada oo 24 saacadood ee u dambeeyay la screen gareeyay 1550 qof oo laga screen gareeyay gaar ahaan xumad iyo inay leeyihiin calaamadihii xanuunka waxa kale oo wali si habsamiya u socda call centerkii oo ay dadweynuhu wali ay la soo hadlayaan iyada oo 24 saacadood ee u dambeeyay ay soo hadleen 11207 qof nambarka guudna ka dhigaysa 488,050 qof waxa kale oo jirta iyaduna in dadka inoogu jira karantiinku ay noqdeen 16 qof oo ay halkii hore ay dad ku soo biireen iyada oo dadka isdiiwaangelinaya ee xirfadlayaasha caafimaadka ahi ay marayaan 785 xirfadle caafimaad oo iska soo diiwaangeliyay gobollada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo doonayaa maanta inaan caddeeyo oo aan u sheegay dadweynaha in uu dhamaaday shaybaadhkii aynu dibadda u diraynay oo uu 3 maalmood ee u dambeeyayba uu shaqaynayay PCR-kii amba mashiinkeenii real time polymerase chain reaction-ka la yiraahdo oo ah kii aynu dibadda ugu diri jirnay oo halkan aynu ka rakibnay confirmation-kiina aynu la eegnay ama validation-kiina aynu la eegnay inay isku mid yihiin kuwii kale aynu u diraynay iyo in kale aanay noqdeen isku mid waxaan dadka uga digaynaa inay dadku arkaan dad kala duwan oo ay la kulmaan oo isku soo dhawaadaan marka dadka waxaan leeyahay waxay joogtaa waqtigii aynu run ahaantii dhagaheena furi lahayn aynu dib isugu noqon lahayn qof walba uu qaadan lahaa xaqiiqada jirta qof walbana uu naftiisana badbaadin lahaa nafaha qoyskiisana uu badbaadin lahaa